أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. عشر كانوا كبلابنا آيات 41 سورة غافر كاملة. يقول الله تبارك وتعالى: إلهي وحليه جل جلاله: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ويا قوم كيجيو ما محيبا لي أنيق إيسوغنادي أدعوكم حال أن إذنكو يرايو إلى النجاة، إلى طريق النجاة، بدبادة وددد انتي كاعين كو يرايو. وتدعونني أنيقنا أديبو يريسان إلى النار، إلى طريق النار، نارتا طريق ذي جد كيدا أديبو يريسان. وعكسو جرني قصدي إلهي سبحانه وتعالى ونوغا قسيناي قصة نبي الله موسى مع فرعون. إلهي ونوغا قسوناي سبحانه وتعالى. قصة سمركا وحانوغو دحجرتي ننكي وناكسنا مقعيسا وصوشاقني مؤمن آل فرعون. نكاسي إنو ري فرعون قويسك فرعون إنو كرد الشيء ayaa sida culimadu u badan yihiin aan ku soo sheegnay. Waqaala rajulun mu'minun min aali fircawn. wax badan ayuu isku dayay in qoomka reer Qibdi uu ka dhasho uu wax tuso. nasaaix iyo waanooyin badan ayaan soo qaadanay. hadalkiisii ayaan ugu dambeeyey: yaa qawmi innamaa haadihi alxayaatu addunyaa mataacun wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar. maanta adduunyo waad haysatiin uu yidhi, laakiin waa iska raaxo, meel lagu sugnaado maaha. camalka xun qofka sameeya waxaa laga abaalmarin doonaa camalka xun. camalka wanaagsan qofka sameeya, rag iyo dumarna, asoo weliba mu'mina, waxaa la gelin doonaa janno, waxaana laga irsaaqi doonaa jannooyinka dhexdooda ayaa lagu irsaaqi xisaab la'aan. hadalkiisii ayaa intaa nooga go'ay. wuxuu yidhi asagoo la hadlaaya dadka, wuxuu waaninayaa oo wuxuu sheegayaa ummad adduunkan soo martay, ummaddii ugu kibirka badneed wey, waa reer fircoon wey. wuuna ka dhasho, waanagii soo sheegnay inuu yahay ibnu cammi fircawn. fircawn ina adeerkii inuu yahay ayaan soo sheegnay. suuraddaanana aad inta badan ayaa ninkaa lagu soo hadal qaaday. ee qisaska kale ee nebiyullaahi muusa maca fircawn, ilaahay sooma hadal qaadin ninkan. iyo qisooyinka noo dhiman suuraddan Ghaafir unbaa ninkan hadalladiisa iyo waanooyinkiisa iyo qisadiisa aad loogu faahfaahiyey. wuxuu yidhi mu'minkii: wayaa qawmi. usluubkaa ka dareemaysaa, yacni waana usluubka diinta iyo dacwadu ay ku baahday wey.
hadaa aragtid qof dacwadiisa iyo diinkiisa uu faafayo waa qof mutawaadica hayin layin adana ah yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku tilmaamay in diinta uu dadka ku gaarsiiyey naxariis fabima raxmatin min allaahi linta lahum naxariis ilaahay ku siiyey ayaa ilaahay wuxuu yidhi kugu jilciyey oo dadka ugu jilcanaatay diinta inaad gaarsiiyo walow kunta faddan ghaliida alqalbi lanfaduu min xawlika dad macangag ahaan lahayd oo qalbi adag dadku way hareerahagay ka yaaci lahaayeen welidaa marka culamaaulaahiga dadka culamaa'ul islaam wadacwa ah waa culamaa'u raxma wey aad dareemaysid markaad la joogtid naxariis iyo deganaan aad dareemaysid markay wax kuu sheegayaana usluub wanaagsan iyo hadal dabacsan kugu gaarsiinaya maxaa yeelay ninkani dadka uu la hadlayo waa afjar man mara fi taariikhi alcaalam dadka caalamka soo maray dadkii ugu faajirsanaa ayuu la hadlayaa markaasuu haddana wuxuu leeyahay qowmkaygiiow waa reerkaygii iyo qoyskaygiiow tolkaygiiow iskama dhex saarayo hayla kan adiga salaada aan tukanin kan fisqiga ku jira kan demiga ku jira haddaad tiraa gaal yahow tuug yahow mujrim yahow haddaad tiraa adaa tuuguu ku leeyahay waxba kaa qaadan maayo marka reerkaygiiow wayaa qowmi qowmkaygiiow maa maxay baa lii aniga ii sugnaaduu yidhi adcuukum xaalan inkugu yeerayo ila annajaati ilaa dariiqi annajaati badbaadada waddadeeda intii ka aan inkugu yeerayo yacni waxa weeyaan sida culimmada mufasiriintu ay yacni waxa weeye markay fasirayeen aayaddan waxay yidhaahdeen ninkan maadaama hadalla yacni aad u wanaagsan iyo xikam yacni waxa weeye uu sheegay uuna ku waaniyey fircawn iyo qowmkii uu ka dhashay waxay isku dayeen ninkan inay ka soo celiyaan iimaanka iyo rumaynta nebiyullaahi muuse uu rumeeyo waxay yidhaaheen waxaad rabtaan ku siinaynaa waxaad rabtaan kaa dhigaynaa xilkan rabnaan kuu dhiibaynaa nin caqli badan yacni haybad badan sharaf badanaa tahay nagu soo yacni biir oo ka soo har yacni nebiyullaahi muuse yacni rumayntiisa iyo raacidiisa ka soo har asaga ayba tashkiilin iyo yacni sabsabid iyo ayay ku bilaabeen gaaladuna waa sidaasoo yacni asaaliibta gaaladu ay adeegsadaan ee dagaalka iyo xoogga inta badan waxaa uga badan qofka inay sirsiraan walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum wax walba waa kugu dayayaa gaalka arrintaasaa marka yaab geliso wuxuu yidhi wayaa qowmi qowmkaygii oo maa maxay baa lii aniga ii sugnaaday waa yaabe adcuukum xaalan inkugu yeerayo ila najaati badbaadada intii ka dhinaca iyo waddada badbaadada waa yacni aan inkugu yeeri najaadku waa addiinu alislaam weye diinu alislaam addiinu alislaamiyu ayaa lagu badbaadaa watadcuunanii anigana aad iigu yeeraysaan ila annaari ilaa dariiqi annaari naarta waddadeedii anigii adinka in la rabay inaad janno tagtaan ood naarta ka badbaadaan ayaa waxa yaab ah naarta inaan inka badbaadiyo ayaan inkugu yeeri adinkuna naarta aad iigu yeeraysaan tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan uu faahfaahin raba uu ka bedele tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan maxaa keenaya dhinaca naarta maxaa keeni kara tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura inaan ku kufriyoon ku gaaloobo billaahi ilaahay ayaad iigu yeeraysaan wa ushrika aan la wadaajiyo bihi billaahi ilaahayna maa shaygoo laysa li aniga bihi maaga cilmun wax ogaal iyo aqoona bise igu sugnaanin yacni waxaad ii wadaan waa inaan kaafir billaah mushrik billaah aan noqdo cilmina ma aan u leeyahay oo inaan gaaloobo cilmi uma lihi bal waxaan cilmi u leeyahay inaan mu'min noqdo oo ilaahay maxaa yeelay waan ilaahay rumeeyey maxaa yeelay gaal walba oo ilaahay ku kufriye bilaa cilmin ayuu ilaahay ku kufriyey tadcuunanii waad ii yeeraysaan liakfura likay akfura si aan ugu gaaloobo billaahi ilaahay wa ushrika aan ula wadaajiyo bihi allana maa shaygoo laysa bihi maaga cilmun wax aqoonaana u lahayn wa ana anigana adcuukum waxaan inkugu yeerayaa ila alcasiizi allihii qaalibka ahaa ee artaladiisa u raynayay dhinaciisa ayaan inkugu yeerayaa allahaasoo alghafaari dembi dhaafidda badnaayo liman taaba ilayh bal wax lala yaabo sow ma ah yaa anigana dhinacii waxaan idiin jiidayaa jannadii idinkana waxaad ii jiidayseen dhinacii naarta wey waa sidii nabigeennu uu yidhi sala allahu caleyh wasalam xadiiska saxiixa ahaa
innamaa mathalii wa mathalu ummatii ka mathali rajulin istawqada naara. aniga tusaalahayga iyo ummadayda oo ummatu dacwa ah wey, waa inta hagaagsan maahane waa inta qalloocan. waxaan la midnaha buu yidhi nin habeen mugdi ah ee roobabaw ah dab shitay oo fajacala aljanaadibu walfaraashu yaqacna fiiha. dabkii uu shiday uu islahaa wax ku karso, haadahaadaha iyo bahallaha yaryarka ah oo cayayaanka ah oo iftiinka soo raaca xilliga roobabka ayaa dabkii ku daadanaya, oo waxaa iftiimaya ayay moodaan wax dhalaalayo waa soo aadayaan wey. markaasuu asagana wuxuu gudagelay inuu ka celinayo oo yadubu canhaa, intuu maro qaato uu markaasay inta ka fakadaan qaar badanaa ku daadanaya. fa ana aakhidun bixujazikum, guntimaha meesha macawista laga guntado oo meesha qofka haddii lagu dhego uusan tegi karin ayaan inku dheganahu yidhi, wa antum tafallatuuna minni, anigana waad iga fakanaysiin, oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam. waa sidaas ummad walba oo wax loo sheegayo oo la hanuuninayo waa sidaa. midda kale ninkani daaciga ihi markuu rabo qofka inuu hanuuniyo, kan la hanuuninayo laftiisa wuxuu rabaa dhinacan inuu kuu jiido. maxaa yeelay dad badan oo waxaa la arkay khayr iyo diin gaalada iyo dadka faasiqiinta ku faafiya islahay, laakiin ayagiiba laga saydcaliyey marka waa in qofku aad u taxadaro wey. wuxuu yidhi laa jarama, waxaa sugan ladan oo kale waa kab ficilkay kabaysaa wey. jaramana bimacnaa habata wa xaqa wey, warka dhabtaa wey. marka waan isjiidanno, aniguna dhinaca badbaadada iyo jannada idiin jiidi, adinkana waxaad ii jiidanaysaan dhinaca naarta. warka kama dhibcaankana waa warkan wey. wuxuu yidhi laa jarama, waxaa dhab ah oo sugan oo xaq ah, annamaa in kale maahane, annamaa ayiladikii tadcuunanii aad iigu yeeraysaan ilayhi maagaas oo gaalnimada ah, laysa lahu maagaa dacwatun ajiibid uma sugnaanin, fidunyaa adduunyada dhexdeeda ajiibid ma leh, walaa fil aakhirati aakhira dhexdeedana ajiibid ma leh. waa asnaamta iyo fircoon in la caabudo wey. laa jarama, waxaa sugan oo dhab ahoo yidhi xaq ah oo yacnii thaabit ah, annamaa ayiladikii waa kufriga, tadcuunanii ilayhi maaga aad iigu yeeraysaan, laysa lahu maaga uma sugnaanin dacwatun cibaado iyo ajiibid wey. fidunyaa adduunyadan ajiibid kuma leh, walaa fil aakhirati aakhira dhexdeedana ajiibid kuma leh. macnaha waxa weye haddaan caabudo aqbalaad iyo xikmad iyo nicmo iyo janno iyo caafimaad iyo awlaad iyo wax dheef adduunyo kuma haayo, aakhirana kuma haayo yidhi. maxaa yeelay ilaahay cibaadadiisa waxaa laga helaa nicma fi dunyaa iyo janna fil aakhira, mirahaasaa laga gurtaa, laakiin kan wax miraaba ma leh. wa anna maraddanaa annaga celinteenna, midka ilaahay ku xidhan iyo midka gaalkaaba, ilallaahi ilaah intii kay u ahaatay. dhammaan dadka waxa weeye rujuuca iyo laabashadu ilaahay u ahaatay. wa anna maraddanaa annaga celinteenna iyo noqoshadeennana ilallaahi ilaah intii kay u ahaatay. wa anna almusrifiina, kuwa xadgudbana, hum ayaga unbaa asxaabu naari, naarta saaxiibadeeda ah. musrifiin fi shirki walkufri ula jeedaa, kuwa ku xadgudbay ee gaadhay gaalnimo inay sidaa ku dhammaystaan, ayaguna waxay saaxiib leeyihiin. saaxiibaa laga cabiray waa lituuli lmulaasama, mulaasamada iyo inta ay naarta ku jirayaan abad alaabidiin wa dahra daahiriin, weligood maadaama ay dhex joogayaan ayaa saaxiiba layidhi. waana tahakumo jeesjees way. saaxiibku waa wax nacfi lehe, nacfi ma yaal meesha. wuxuu yidhi marka waanadiisuu rabaa inuu iska gebangabeeyo. wuxuu yidhi fasatadkuruuna, waad xasuusan doontaan maa shayga aquulu aan leeyahay lakum idinkaan idinku leeyahay. waxaan idinku leeyahay dib dambe maanta maalinaan ahayn ayaad xasuusan doontaan. yidhi fasatadkuruuna, waad xasuusan doontaan maa yiladikii aquulu aan leeyahay lakum idinkaan idinku leeyahay, waxaan idinku dhahayo waad xasuusan doontaan. maalinan maanta ka ahayn ayaad u calaacali doontaan. yaa laytana adacna allaha wa adacna alrasuul, qaaluu rabbanaa innaa adacnaa saadatana wa kubaraa'ana fa adalluuna asabiil, ayaad dhihi doontiin. halkaa markuu isaga gebangabeeyey waanadoodii ayay waxaa la yidhi ayaguna ka quusteen inay soo dumaan oo diintii ay ka saaraan
هدد فرعون بالقتل يالد هدده فرعون بالقتل فرعون مركو وحوري نين كان وان اسمري وينيه وإن للدلا مرك هل الدلوري كان أمر وديبي ciidamo u diyaariyay kun nin oo dhalinyaro ah oo askar ah oo ciidan ah oo qalabaysan ayuu ninkaasaan inka rabaa isagoo meyd ah oo nolol iyo geeri inaad igu keentaan asagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markaas iyo nabiyullaahi muuse ayaa yidhi isaga bax qoyska iyo deegaanka fircoon ka carar buuruhu u carara mar buuraha ayuu cararay marka hadalkan markii go'aanka ay qaateen ayuu asaguna hadalkan yiri wuxuu yiri ufawwidu waan bandhigayaa amrii arrinkayga iyo taladayda ila Allah ilaahay intii ka ayaan bandhigayaa waa sida la rabo qofka muuminka ah idaa waajahatu almushkila an yufawwida amrahu ila Allah wa an ya'tamid calayh marka qofka arrin adag ay soo qabsato oo dacwada iyo diinta iyo maarata dhibaatada yani waxa weeye lagu dhibaateeyo loogu hanjabo in la dilayo ama la xirayo ama la dhibaataynayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa arrimihiisa u bandhigto wa ufawwidu waan bandhigi buu yidhi amri arrinkayga ila Allahi ilaahay intii ka ayaan u bandhigi inna Allaha ilaahay maxaa yeelay basiirun waa alla arkaaya bilcibaadi addoomanka we midka wax dhibaataynaya iyo midka miskiinka la dhibaataynayo ilaahay waa u jeedaa ujeedidaasna waxay ka tarjumaysaa ma dayacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa ilaahay wuu ka aqbalay wuxuu yidhi lahay fawaqaahu mu'minkii allaahu ilaahay wuxuu ka badbaadiyey sayi'aati maa shay xumaanyaalkiisa shaygoo makaruu ay ku shirqooleen ree fircoon iyo qoyskiisa wixii ay ku hagardaamaysteen iyo shirqoolka ay u dhigeen ilaahay wuu ka dhowray fawaqaahu mu'minkii allaahu ilaahay ayaa ka dhowray sayi'aati maa shay xumaanyaalkiisa makaruu ay makri faleen oy ku hagardaamaysteen ilaahay waa ka ilaaliyey waxay ku shirqooleen oo ninka in la dilo la keeno ilaahay waa ka badbaadiyey badbaadadaasna yacni waxa weeye hadda aayaduhu ma sheegin laakiin culammada mufasiriinta waxay leeyihiin kunkii nin oo la daba dhigay waxay galeen inay baadi goobaan asagana buurahaasoo iska dhex galay ilaahu meeshiisa ku caabudayay marka kunkoodii intooda badanba bahalla cuna leeyahay libaaxiyo iyo bahallo haramcad iyo bahallada wax cuno duurka jooga ilaahay ku sabiciyay mid miday u soybteen wey markay arkeen in bahallo cunayaan ayay dhowr boqol oo yar soo laaqataa la yiri fircoon ay u yimaadeen ayagoo dhahaya bahallaana cunayo dugaaga eber naga dhigay markaasoo fircoon inta ku xanaaqo yiri intaan soo hartana hal la salbiyo yiri la salbiyo tiirka daldalaada hal la geeyo nin jaxanjaxa ma ahayn fircoon wey waxaaqa ilaahay wuxuu waxaa ku degay biaali fircauna fircoon aalkiisiina suu'ul cadaabi cadaab midkiisa foosha xun ayaa ku degay ayagana ma badaahine waa markii dhinaca badda loo kaxeeyey oo quraanku uu soo koobayo aayadahan way soo koobayaan qaabka cadaabku ugu degay waa in biyihii lagu maashoodiyey wey waxaaqa waxaa ku degay biaali fircauna aalkan loolama jeedo yacni cashiiratuhu loolama jeedee bimacnaa atbaacuhu intii raacdo dhan ayaa aalkiisa ah waxa la wixii raacay yaysab ahaanin tolkiisee waxa la wixii raacaa layidhaha aalu fulaan waxaaqa waxaa ku degay biaali fircauna fircoon aalkiisii suu'ul cadaabi cadaab midkiisa foosha xun ayaa ku degay annaaru ayaa ku degtay wey suu'ul cadaab aan ka bedelaynaa ama huwa midkaa suu'ul cadaabka annaaru naar waay ama icraab saddexaad annaaru naarta ayaa yucraduuna fircoon iyo aalkii reer fircoon loo bandhigaa calayha naarta oo yucraduuna looga khabra wey annaaru naar ayaa yucraduuna la bandhigaa waayahay nimanka aalu fircawna calayha naarta ayaa loo bandhigaa quduwan aroortii iyo wacashiyan galabkiiba yani waxaa laga wadaa alcadaabu fi lbarzakh intaanba aakhire la gaarin adduunyada marka ay la duubay oo dhulka uu laqay ayay ku marayaan aroor kasta iyo galab kasta ayaa cadaabka naarta jahannamo ayaa lagu soo daayaa oo yacni lagu soo shubaawe quduwan aroortii wacashiyan maxaa loola jeedaa marka quduwan wacashiyan culimada macaani badan ay ka bixiyeen quduwan wacashiyan waxaa laga wadaa yacni xilliyada ugu daran ee la cadaabo waa aroorta iyo galabka waa labada gelin oo ay ugu kibirka badnaayeen waagu markuu baryana waxay bilaabi jireen inay tuntaan oo ay baabi'iyaan reer banu Israa'iil
galabkii markii la gaarana waa labada waqti oo bini'aadamku ugu dhaqdhaqaaqa badan yahay maadaama ay sida ahaayeen ayaa naarta jahannamo ayaa lagu soo farraqaa qaybaheeda ugu cadaabka kulul ayaa qabriga lagu soo farraqaa xilliyada kalena ma aha inay nafisayaane meelo kale oo waxa la geeyaa yacni cadaabyo kale ayaa la geeyaa oo yacni waxa weeye midba midka kale loogu noocnooc ugu bedelan ama waxaa loola jeedaa la yidhi quduwan wa cashiyan bimacna dawaam yacni waxa weeye waa qofkaasoo yidhaa aroor iyo galab kasta waa socdaa yacni waa dawaam mar kasta waa cadaaban yihiinna waa loola jeedaa ama quduwan wa cashiyan waxaa lagala wadaa yacni xilliyadaas waxay dareemaan cadaabka ka ugu daranay dareemaan hadi midka rabta ka dhige annaaru naar ayaa yucraduuna la bandhigaa aalu fircawn calayhaa naarta jahannama ayaa loo bandhigaa quduwan aroortii iyo cashiyan galabkiiba weyn wa yowma maalin taquumu ay istaagayso assaacatu saacadda qiyaamada maalimkay kacayso istaagayso qiyaamo la gaarana yuqaalu likhazanati jahannama a u soo qadaraysa jahannama adeegayaalkeeda malaa'igta zabaaniyada waxaa lagu yidhaahdaa adkhiluu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa ashadda alcadaabi cadaabkan ugu daraanshaha badan geliyo waa naarta jahannama salkeeda tiirarka meesha la geliyaa ina almunaafiqiina fi darki alasfali dad badanaa isku darkul asfalka ku wada jira qowma fircoon iyo sida haamaan iyo qaaruun iyo taariku salaadka iyo kuwaas ubay ibnu khalaf iyo kuwii nabigeena dhibi jiray sala allahu calayhi wasalam abijahl iyo yacni fircawn iyo ninkii la oran jiray uxaymir qudaar ibnu saalif oo hashi yacni nebi kasta rasuul kasta kuwa ugu dhibka badnaa oo ugu macangagsanaa uma lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala arraxmaani cutiya meesha ilaah yidhi wa yowma maalin taquumu ay istaagaysaa saacatu saacadda qiyaamada ay kacayso oo dhacaysana yuqaalu lilmalaa'ikati malaa'igta waxaa loo yidhaahdaa adkhiluu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa ashadda alcadaabi cadaabkan ugu daran wey waid waqti xasuusta wey oo nebi allah ummadaadana uga qisay yataxaajuuna aalu fircoon ay murmaayaan fi naari naarta dhexdeeda ay ku murmaayaan markii naarta salka loo dhigo oo qiyaamada la gaaro ayay waxay isku bilaabayaan eedayn iyo talaacun iyo iscanaanasho iyo dagaal ayay bilaabayaan wey waid waqti xus nebi allah ummadaadana uga qisee yataxaajuuna ay murmaayaan aalu fircawn fi naari naarta dhexdeeda ay ka murmaayaan fayaquulu marka faadaani waa tafsiirun liltaxaaji watakhaasum waxaana loo sheegi sida ay u murmaayaan fayaquulu ay dhahayaan adducafaa'u marka waid waqti xasuusta yataxaajuuna ay murmaayaan aalu fircawna fircoon ay murmaayaan fi naari naarta dhexdeeda oo fayaquulu ay leeyihiin adducafaa'u kuwii taagta daraa kuwii ducafada ahaa taagta daraa waa bimacna alatbaacu washacbu qur-aanka kuwaas oo ducafo u yaqaan kuwa shacabka ahoo ducafada ah xayla qur-aanka waxaa laga qaadanaa yacni shacbiyadda xujo uma noqon doonta qiyaamada waxaan madaxdana geliday oo hadda dalalka muslimiintu ay la nool yihiin wuxuu ku leeyahay dowladii u taala anaxaa iga galay madaxweynaha mas-uulka ah waxa dhan oo maanta dalalka islaamka looga yimid shacbiyaddii a dhimatay gaaladuma waxaad moodi inay dowlad dul degaan ama ay dhibaateeyaan kama bilaabin shacbiyaddii a laga bilaabay shacbiyadda waxaa lagu sameeyey shacabka meeshii uu ka dhismi lahaa ee diinta ah ayaa laga durjiyey wey yani 90% dadka kacaya oo dhallinyarada diin kuma barbaarayaan haddii marka diintii lagu barbaari waayo maadi iyo sheeke iskool iyo meelo socsocod iyo tahriib iyo waxaas lagu borogaraamiyo dhallinyartii saasay la korayaan shacbiyaddii markay dhimato dee shacab dhintay yacni hoggaan fiican ma helayo welidaa maanta caalamka islaamka yacni waxa ay madaxda jaa'iriinta ama xaqa ku tumanaya ama yacni gaalada u daba dhaliflaynaya waxa yacni dhibaatada loogu salliday waxa weeye waa shacabka dhibaatadiisa wey shacbiyaddan jirin maxaa yeelay haddii shacbiyaddu jirto bannaankaa la iska dhigi lahaa madaxdaas wey mar kasta qur-aanku uma cudur daara marka qofkaan anigaa raacay qofkaana i dhumiyey qofkana saan i yeelay haba sheegin wey
habashii fayaquulu ay leeyihiin adducafaa'u kuwii taagta daraa shacabka ahaa liladiina kuwii ay leeyihiin istakbaruu isweynaysiiyey kuwa kibirka iyo santaaga waa ru'asaa'u dalaal yacni kuwii shacbiyadda waa fircoon iyo haamaan qaaruun wixii la halmaalay kuwa isweynaysiiyey ay ku leeyihiin innaa annaga haddaan ducafanahay kunnaa waxaan ahaan jirnay tabacan kuwa raacsan lakum adinka raacsan wey tabacaani waa jamcu sidiisa ku yahay waa jamcu taabicin tabacan faacil bimacnaa facal bimacna taabiciin kunnaa innaa anagu kunnaa waxaan ahayn tabacan ay taabiciina kuwa raacsan lakum adinka waxay ka dhigan tahay khaadim oo lagu jamcinayo khadam adeegayaal ama masdar ka dhigo innaa anagu kunnaa waxaan ahayn tabacan dawii tabacin raacsanaan kuwa u saaxiiba oho lakum adinka laydin raaco war annaga adinkaan idin raacsanayn adinka ayaa dhihi jiray aakhiro wax la yidhaha ma jiraan naar wax la yidhaha ma jiraan laydin cadaabi maayo annagaa idin difaacayna waa kana halkaanaan wada joognaa fa hal he antum adinka madaxay ma tihiin muqnuuna kuwa tari kara cannaa xagganaga nasiiban qayb nasiibkoo mina naari naarta ka mid a wax unma naga nafisi kartiin bal intaasaad kibir iyo xoolo iyo qablayn iyo orod iyo santaag aad wadeyne maanta juz ama qayb naarta ka mid a managa qaadi kartiin wey fa hal antum adinka ma tihidiin madaxay muqnuuna kuwa deeqi kara oo tari kara canna annaga xagganaga nasiiban qoondayar nasiibkoo mina naari nasiiban tanwiinta waa tanwiin alqilla wax un naarta bal raganimadiinnii iyo hantidiinnii iyo kartidiinnii iyo wixii aad noo faani jirteen maanta wax un naarta ka mida ma naga difaaci kartiin qaala aladiina kuwii waxay yidhaahaan marka hadalkoodii waa kan istakbaruu isweynaysiiyey innaa annagu waa qowmu fircoon aalu fircoon wey innaa annagu kullun dhammaanteen yacni min alatbaaci waaru'asaa ama aan madax ahaano ama aan shacbiyad ahaanee fiiha naarta dhexdeedaan ahaanayo dhammaan naarta ayaan ku jirnaa waxba isma dhaanno qof wax ka tari kara naguma jiro qaala aladiina kuwii waxay yidhaahaan istakbaruu isweynaysiiyey innaa annagu kullun dhammaan fiiha naarta gudaheedaan ahaanay maxaa yeelay inna allaaha ilaahay qad xaqiiqi xakama ilaahay wuxuu kala xukmiyey bayna alcibaad addoomanka dhexdooda yani ma aha aakhiro iyo adduunku labay kalata adduunka maxkamadihiisu iyo xukumyadiisu isbeddelaa ku yimaada qofaa waxaa lagu xukumaa dil waa la cafiyaad maqlayso qofaa xarig lagu xukumi waa laga soo daayay qofaa xaal la saari waa laga cafiyey qofaa maarata la shirqooli wuu ka fakan laakiin aakhira ilaahay waa axkamul xaakimiin xukumka hadduu dhaco oo wixii naar galana ay galaan wixii janno galana ay janno galaan oo loo kala baxo dadka fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ka daba tag ma leh racfaanaan ka qaatay iyo abukaati loo yaraan qabsaday iyo xoogaa dibaa loo fiirina arrinta iyo waanwaan iyo suluxa lagu dhammaynaa bacmadooba xoogaa lagu shubaa waxaas meesha kama jiraan xukunka waa dhacay leey marka aayaddani waxay fariin aayadahani u dirayaan qof walbow qofka aad raacayso oo saaxiibka aad la tahay ood ku dayanaysid iska ilaali maxaa yeelay yacni waxa weeye saaxiibka xun waa dhib badan yahay saaxiibka xun aaday diinta uga digtay waana waxa dhan oo dadka fasaadiyey maxaa yeelay ilaahay waa kan soo marnay ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يعني وحوي التلاوم حال هذا وحوي كل مودة وصلة وعلاقة ليست لأجل الله حرير كستون إلهي درتي نقن نهايتها التلاون والتخاصم واللعن يوم القيامة waxay ku dhamaan doontaa is-eedeyn iyo islacnadid iyo adaan noogu sababaha ayay ku dhamaan doontaa waa kan ku soo marna ninkii muuminka ahaa qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin yaquulu ainnaka la min almusaddiqiin aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman ainnaa lamadiinuun qaala hal antum muttalicuun faaطalaca fara'aahu fii sawaa'i aljaxiim marka raacidda waa halis joogaan dad madaxa ama ganacsato ah ama qabqablayaala meeshuu ka galaan ka galaawe meeshuu ka galo
ayaan ka gelayaa. Hadda Fircawn oo kale haddaad raacdo, Fircawn dadkiisa intuu geeyey yaqdumu qawmahu yowma alqiyaama fa awradahum annaar wa bi'sa alwirdu almawruud wey. marka waa halis. qofka waxaa la rabaa muuminka ahi inta badan dadka muuminiinta saalixiinta inuu ku xiraado mar kasta aakhiro. waxa weeye dadku waxay isku raacaan atbaac, qof walba almar'u maxaa xadiisa wuxuu ahaa, waxa weeye yacni almar'u yuxsharu waxaa lagu soo shiriyaa calaa man axabbahu. xadiisaasaa jire, qofka waxaa lagu soo shiriyaa dadka uu raacsan yahay ama uu taageersan yahay, uu ku daysaday, dadkaasaa lagu soo shiriyaa. man axabba qowman ushira macahum, qofkii qowm jeclaada macigoodaa la soo saaraa wey. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaaheen fi nnaari, naarta gudaheeda ahaaday, markii qolaba ay tiri wax ma noo tari kartaan iyo waxba idinma tari karno, ayay go'aan midaysan qaateen. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaaheen fi nnaari, naarta dhexdeeda ahaadeen, waa jamiican min alatbaaci waalru'asaa, hadday madax yihiin iyo hadday shacab yihiinba. waxay yidhaaheen likhazanati jahannama, yacni dhihidaani wax dhacay oo kala laga dhiga maadaama ay xaqiiqa tahay, laakiin way dhihi doonaan wey. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahaan fi nnaari, naarta dhexdeeda ahaaday, likhazanati jahannama, jahannama naarta la yidhaha walciyaadu billaahi, adeegayaalkeeda waxay ku yidhaahaan malaa'igta ka shaqaynaysa azzabaaniya la yidhaah, falyadcu naadiya sanadcu azzabaaniya, shaabuugyo iyo jeedallo naara iyo waxaanu cadaabahay wataan dadka ku cadaabaan. waxay ku yidhaahaan udcuu rabbakum, rabbigiina noo tuuga wey, wa rabbi noo barya. yacni ayaga waxay saas u leeyihiin waxa ugu dhow ee markii ayaga ahlunaarka laga soo tago ay arkayaan oy u jeedaan ayaa ayaga ah wey. welidaa waxaa la yidhi malaa'igtaas khazanatu jahannama walciyaadu billaahi, allah naga koriyey, aragtidooda iyo naarta waa isku mid a layidhi. naarta laga dhex sameeyey, jirkooda dhan waa naar socota, aragtidooda ayaaba cadaab. haddana saasay taa naartaasay ka dhex shaqaynayaan, ilaaha u abuuray ku guban maayaan, culays kuma haydo, walwal kuma haydo, raaxo meesha ugu fiican ay ka dareemayaan ilaahay awoodiisa. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahaan fi nnaari, naarta gudaheeda ahaadeen dhammaantood, ahlu naar oo dhan ayaa waxay ku yidhaahaan likhazanati jahannama, jahannama adeegayaalkeeda waxay ku yidhaahaan udcuu barya rabbakum, rabbigii noo barya, yukhafif rabbi ha fududeeyo cannaa annaga xaggeenna yowman maalin min alcadaabi, hal maalin oo maalmihii adduunyada ka mid a, waa 12 saacadood, halkaas maalin naartaana laka neefiyo. walxooga aan dareenno kafaf iyo qabowsi aan dareen. yukhafif rabbi ha fududeeyo cannaa annaga xagganaga yowman maalin min alcadaabi, cadaabka naga fududeeyo. waxaan kaloo ugu tegi doonaa suuratu zukhraf, wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala innakum maakithuun. yacni waxa weeye waxay u dhawaaqayaan malagga ugu sarreeya ee malaa'igta naarta, yacni waxa weeye ka shaqaynaysa, malag la yidhaha maalik oo naarta furaheeda haaya oo sii shidaaya ayaa jira oo maalik la yidhaahdo. 10 malag oo in la rumeeyo ay waajib tahayo la xafidiyo la barto ayuu ku jiraa. marka maaligow rabbigaa noo baryay leeyihiin, hana dilo oo go'aanka yacni waxa weeye waa yahay rabbigaa noo tuugo, yukhafif cannaa yowman, annaga maalin ha naga fududeeyo min alcadaab weye. dayib wanaadow waxay u dhawaaqaan maalik bacda 40 sana, 40 sano markuu ka aamusnaado ayuu wuxuu leeyahay innakum maakithuun, war badan ma gelaayo, waa ku nagaanaysi. malaa'igtan lafteeda markay leeyihiin rabbigii noo tuuga cannaa yowman min alcadaab, waa sidaas oo kale bacda 40 caaman, 40 sano ka bacdi ay u jawaabaan. ilaa mugta qofka hadduu kula hadlo oo ku yidhaahaye waa yeela, waa kuu yeela, nafisaad dareeme, ma jaxinjixa ma tusaayaan, maba loo abuurin. qaaluu marka waxay yidhaahaan malaa'igtii khazanatu jahannama, jahannama ka adeegaysa waxay yidhaahaan awalam taku qisadu miyaysan ahayn ta'tiikum inay idiin imaan jirtay rusulukum, rusushiina laydiin soo diray bilbayinaati, mucjizooyin cadcad. war naartan qof caqli leh ama maskax leh sooma galee miyaysan jiri jirin rusul idin imaata wey. wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada, arrimahan inkaga diga, miyaad ahaydeen dad aan waxba arkin miyaad ahaydeen? qaaluu waxay yidhahaan malaa'igta naarta khazanada awalam taku qisadu miyaysan ahayn
taatiikum in idiin imaanayso idiin imaan jirta rusulukum ama rusulukum bilbayinaati mucjizooyin cadcad war waa kana mucjizadanan haynaa rasul inaan nahay ilaaha nooga marqaatiya ka jooga naarta gaalnimada miyaysan taas aynan rusushinin la imaan qaaluu markaasi waxay yidhaahdaan ahlu naarkii bala inaysan noo imaanin ka aale waynoo yimaadeen walla wada yaqaan waqti dheer ay rusushu hadlaayeen nabiyullaahi nuux meequu la hadlaay yaa falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caaman intaasuu daba taagnaaway oo dadkaasaa cudurdaar leh qaaluu markaasi ahlu naarkii waxay yidhaahaan bala inaysan noo imaan ka aale waynoo yimaadeen qaaluu markaasi malaa'igtu waxay yidhaahdaan fadcuu tuuga marka idinka rabbigii maxaad noo leedihiin rabbi tuuga qaaluu markaasi waxay yidhaahaan fadcuu rabbakum rabbigiin baryo adinkuu calaacala ogaadana waxay ugu darayaan wamaa ducaa'ul kaafiriina gaalada baryadooda iyo calaacalkooda ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi iyo lumid maahan waxba ka soo qaad ma leh weligii kumanaan sana hadduu calaacal ilaahay aqbalaya male ilaahay ducada iyo baryada iyo calaacalka waa fursadda iyo adduunyada qofku inta joogo unbay ku tartaa wey ilaahay wuxuu yidhi innaa annaga lanansuru waxaan u heelinaynaa rusulanaa rusushannadaan soo dirna annagaa u heelinayna sida nebiyullaahi muuse nebiyullaahi haaruun nebigeenna ambiyada dhan wey waaladiina kuwiina waan u heelinaynaa aamanuu rumeeyeen rususha alle iyo rususha rumeeyeen oo hadda ninkan mu'minu aali fircoon ka mida iyo qof walboo mu'min oo diinta ku taagan ilaaha garab taagan wey gaal waxba kama dhibayo mararka qaar ha iska dhacdo in laga adkaado mu'miniinta la laayo la dhibaateeyo la xiro laakiin ghalabada iyo rasmiga hadday ku dhintaanna saasay hiil ku heleenba oo shuhado ku noqdeen innaa annagu lanansur waxaan u heelinaynaa u gargaaraynaa rusulanaa rusushannada aan soo dirannay waan u heelinaynaa waaladiina kuwiina waan u heelinaynaa aamanuu rumeeyeen oo mu'miniina fil xayaati nolosha dhexdeedaan ugu heelinaynaa noloshaasoo addunya liidnaashaha badan adduunyada wa yowma maalinna waan u heelinaynaa yaquumu way istaagayaan al ashhaadu kuwii markhaatiyaalka ahaa shuhado dad oo ku markhaati kacaayo ummadaha ayaa soo istaagaya ashhaadaas waa jamcu shaahid waxay ka kooban yihiin min al ambiyaa'i waalmalaa'ika ambiyada ummadahooday ku markhaati furayaan ummad walba yacni waxa weeye nebigoodii ayaa ku markhaati furaaya fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiidan ummad walba nebigeedaa ku markhaati furaaya waxaa kaloo waxa soo istaagaya markhaatiga ka mid ah malaa'igtii acmaasha qori jirtay wey warqadahooday la imaanayaan qof walba maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid meesha markhaati la imaanaya marka maalin adag wey maalinkaasna ilaahay wuxuu yidhi mu'miniinta iyo rususha waan ka badbaadinaynaa waan u heelinaynaa yowma maalin ayaan u heelinaynaa waxaan ka bedelaynaa wa yowma yaquumu lashaad laa yanfacu aysan anfacaynin addaalimiina kuwa gaalada oo daalimiinta macdiratuhum cudurdaarashadooda yacni gaaladu waxay isku dayayaan wax walbo cudurdaara rabbanaa ghalabad calaynaa shiqwatuna wa kunnaa qowman daaliin haa rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainnaa daalimuun yaa laytanaa nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin rabbana calacalkaas wax walbo cudurdaara yowma maalin ayaan rusushay mu'miniinta badbaadinaynaa laa yanfacu uusan anfacaynin addaalimiina kuwa daalimiinta gaalada iyo ahlunaarka macdiratuhum aysan anfacaynin cudurdaarashadooda walahum ayaga waxaa u sugnaatay allacnatu lacnad ayaa u sugnaatay ku dhacday maalinkaas naxariista ilaah laga fogeynayaa wey walahum waxaa kaloo ayaga u sugnaaday suu'u daari daartii aakhiro midkiisa foosha xun ayaa u sugnaaday oo cadaab ah wey daarta aakhiro meesha daarta xun waa naarta wey walahum waxaa kaloo u sugnaaday suu'u daari daarta aakhiro cadaabkiisa foosha xuna waa u sugnaaday wey walaqad xaqiiqe aataynaa waan siinay ur ilaahay muusa nebiyullaahi muuse alhudaa hanuun ayaan siinay nebiga ku ahaa la siiyey wacala kitaab iyo hanuun wa urathnaa waxaan dhaxal siinay banii israa'iila reer banu israa'iilna alkitaaba kitaabkii towreed la dhihi jiray wey ashaa macrifa kitaabkaasa hanuun iyo khayr fara badan ayaa ku sugnaa wey hudan xaaluu yahay kitaabkaasi hanuunin iyo wadikra waanin liulil albaabi caqliyaalka kuwa u saaxiibka la waaniyo oo la hanuuniyo wey laakiin way ku dheeleen kitaabkii maantay yacni waxaa ka haray wax yaroo wacdi maan intii kala dhan
waxay ka dhigeen waxyaalo gacantoodii ku taxriifiyeen. fasbir adkayso sabar nebi allow inna wacda allaahi ilaahay ballanqaadkiisa xaqun waa mid dhab ah. aayadahan dhanba xikmadda loogu sheekaynaya nebiga waxay ahayd in la dareensiiyo ummadaha ka horreeyey ambiyada nebi muuse iyo dhammaan sida kuwan hadda gaalada nebiga ay leeyihiin waa ku dilaynaa, waa ku cayrinaynaa, waa ku dhibaataynaynaa. ambiyadaa sidaasaa loo hanjabay wey. daruunii aqtul muusa waliyadcu rabbah waa kay fircoon lahaa wey. marka nebigana waxaa laleeyahay sabar, ambiyadaa ka daba tag. maxaa yeele ambiyada rususha waxaa ka mid ah ululcazmi kuwa la yidhaah. fasbir kamaa sabara ululcazmi min arrusul wey. fasbir sabar yacni waxa weeye inta dhib uu fircoon ku sameeyey nebi muuse waan soo marnay wey. fasbir nebi allow sabar inna wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid dhab ah weeye. waa in ilaahay ummadda muuminiinta iyo rususha u heelinayo, adduunka nasri la siinayo, aakhirana janno la siinayo. wastakfir dhaafid dalab lidembika dembigaagana dhaafid dalab. dhowr mar aayadaha noocaana soo marnay. dembi nebigu ma lahayn sallallahu alayhi wasallam ee waxaa laga wadaa waxyaalaha tabicaadka sidii fadliga badnaa uusan yeelin. sida dagaalkii Badar nimankii gaalada inuu laayaa la rabay ma uusan yeelin. munaafiqiintii Tabuuka inuusan cudur daarina la rabay ma yeelin. Cabdullah ibn Ubay inuu ku tukana la rabay nebiga uu ku tukaday. waxyaalahaasa lagu haystaa way. iyo Cabdullah ibn Maktuum oo wejiga u bedelay markii nimankii gaalada ahaa uu yiri yaa la shiray. waxyaalahaasa ambiyada waxa looga dhigaa wax weyn. waata sidii nabiyullah Yunus la yiri faltaqamahu alxuut wa huwa mulim waa eedeysan yahay. ilaahay dartiisuna u haajiray. ilaahay dartii ayuu u haajiray. واستغفر وحكى العلماء كما سيران دمي داف دلب. واستغفر داف الدلب لذنبك لذنب أمتك. ومدى أدو دمي داف دلب أدو دمي مليهدي. وسبح تصبيح سنبي الله ملتبسا حالات كوريا هانتهاي بحمد ربك مهد علنتيسا بالعشي في العشي قلبكي يولي بكاري وعني وحوي أرورتي بتصبيح سو يعني وحالة المامي قال دا سيف لوقع طول لدى قال كلي ليسا مدعيه ذكرك إلهي بدي يا للي نبينا عليه الصلاة والسلام وحياله اللي قوليستو أي كميت هاي قفك إنه ذاكر نقطة شياطين تي السحرة تي أعداد تي قالة تي وحياله اللي قد بي كميت سيبا أذكار الصباح والمساء تاس أي قرآن كحوق سارة بالعشي وأذكار المساء والإبكار أذكار الصباح وي. إن الذين كو يجادلون مرمى في آيات الله لها أيديه سكا مرمى بغير سلطان حجلآن مرمى سلطانكو أتاهم أيغو أيمد كوا قالدا إن في صدورهم ما في صدورهم لابهو دا دحدو دا ما أهانين إلا كبر إسلوين ماهان. يعني وحيالها لتلمام أو قالدا نبيغينا يقول دباتين وحاكمدا إيا مؤمنين مرنكا إيو ضودا إيو قججعدا إيو عربتو حيا هايين niman saliid al-lisaan carabkooda iska furan yahay. marka fi aayaatillahi macnaha fi ibdaaliha aayaadka inay buriyaan ay isku dayayaan wey. yani waxa weeye dhowr marna ilaahay uu sheegay laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qaliila waxaaba sigtaba inaad u leexato yani sida ay kuula murmayaan. innal ladina ku yujadiluuna murma fi aayaati llahi ilaha aydiisa ka murma bighayri suldaanin xujalaan. يعني جدالك وحالربا مع حجة إنات كمرميس سلطان كاسو أتاهم أيغا أيمد إن في صدورهم ما في صدورهم أيغا الله بهو كما سقنا يحبديال كودا إلا كبر معاني. يعني لابتو دا يقلبي قدر دان وحا كجرى كبري إسلويني كبر كاسو ماهم كوا قال دا أي سنهين ببالغيه كبر كوا قاري كروي ماذا قاريان أي لا يحقق الله لهم إلهي سبحانه وتعالى وحقيقي مايو مقاصدهم سيدا أي ربان إلهي مو حقيقيناي كبير كان سوحا كميدا حسد كأي نبي قال حسديان سي أديق نبي لغا قدقى أنا قابل جوغني سي أديق اللغو دورتي سي أديق الرسول لغا قدقى سي ما ركتي أنا قال ليه أساقا أديقو يعني وحوي ويليرو أغونو هوي أبلانا يعني أساقا دبكعا ونبي يدينيه كبير كاسا كجرة فاستعيذ مغنقل نبي الله بالله إلهي شرطو ذا كمغنقل إنه الله هو الله السميع الله مقلد بدن واي هذا لدى أدوامده البصير الله أركد بدن ويو حالته هذا لخلق السماوات
cirarka iyo wal ardi dhulalka abuuristooda ayaa akbaru weynin badan min khalqi nnaasi dadka abuuristooda wey. yacni waxyaalaha ay inkirayaan waxaa ka mid ah ilaahay inuu koonkan iska leeyahay, dadka abuuray soo noolaynayo. taa ay diidan yihiin waa bini aadam, bal miyaysan fiirin waxyaalaha ay ogolaayeen oo laakiin ilaahay aysan ugu hanuunin. waxaa ka mid ah cirarkan iyo dhulalkan in ilaahay leeyahay saasnaamtoodu lahayn. marka ilaahay wuxuu leeyahay khalqu samaawaati wal ard, samaawaadka iyo ardada abuuristoodaba akbaru ka weynin badan min khalqi nnaas, dadka abuuristooda. walaakina akthara annaasi, laakiin dadka intooda badan laa yaclamuuna daalik, arrinkaa ma oga, ma yaqaaniinoo ilaahay awooddiisa ka fiiri maayaan cirarka iyo dhulalka iyo xaqiiqata daalika ma oga wey. wamaa yastawi ma sinnoor ilaah alacmaa kan indhoolaha ah iyo walbasiiru midka wax arkaya ma sinno. qof indha leh iyo qof geb ah ma sinna, nolosha adduunyada kuma sinna, wax qabsiga kuma sinna. waa naafo qofka indhoolkaa wey. yani haddii indhoolnimada haddii qofka mu'minka ilaahay u keeno uu ku sabro waa qiimo weyn, oo dad badan oo indhala ayaa ka qiimo badan, ka hanti badan, ka cilmi badan, ka sharaf badan, xataa ka lebis qurxoon dad indha leh. laakiin aayaddu waa tusaale loo soo qaatay, waa mathalun lilmu'min waalkaafir. qofka mu'minka waa qof indha leh wey, oo naartiina isaga jeeda, jannadiina u jeeda. gaalkuna waa geb waa. ilaah marka wuxuu leeyahay maa yastawi lacma, kan indhoolaha oo gaalka iyo walbasiiru kan wax arkaya ma sinna wey. saas hadday tahay waaladiina kuwii aamanuu allihii nebi rumeeyeen iyo camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha wanaagsan iyo walal musii'u midka xumaatada sameeyaana ma sinna wey. waaladiina kuwiina ma sinna aamanuu rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha wanaagsan iyo walal musii'u kuwa xumaatada sameeya. musii waa mufrad laakiin bimacna alfariiq ah. kooxda iimaanka iyo wanaagga iyo daacada ku dhex jira iyo dadka xumaatada iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo fisqiga ku jira ma sinna iyaguna. ilaahay waa ka yidhi am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kalmufsidiina fi lard. ma dadka muuminiinta oo cumrigooda camal saalix iyo iimaan ku soo dhammaystay miyaan aakhire ka yeelinaa mufsidiintii fi lard? am najcalu lmuttaqiina kalfujaar. wasadada ilaahay caabuda habeen iyo maalin ilaahay cibaadadiisa u taagan iyo dadka faajiriintaan isku mid ka dhigaynaa? waa maya. qaliilan wax yar ma aad u yar ayaa tatadakkaruuna waana qaadataan. yacni ibni aadamku intuu waanada qaato waa wax aad u yar. gaalkuna hadduu xataa waanada arko ku socon maayo. wax galo oo waana ayaa yar wey. inna asaacata saacadda qiyaamadu la aatiyatun mid imanaysa wey. waxyaalaha ay inkirayeen ay ka mid tahay. saacad ma jirto, qiyaama ma dhacayso. ilaahi wuxuu yidhi laa rayba wax shakiya fiiha saacadda dhexdeeda ma ahani. walaakina akthara annaasi, laakiin dadka intooda badan laa yu'minuuna ma rumaynayaan saacadda qiyaamada. wa qaala rabbukum rabbigiinu wuxuu yidhi bini aadamow udcuunii aniga ituuga oo ibarya wey, oo icaabuda astajib ajiibee lakum adinka waan idin ajiibayaa. ilaahay wuxuu amray adducaa, yacni wuxuu in allaha amaranaa bidducaa wa wacadana bilijaaba. wuxuu noo ballan qaaday ijaabo. nabigeena ducooyinkiisay ka mid ahayd sala allahu alay wasalam, allahuma amartanaa biducaa'ika, ilaah waxaadna amartay ducadaada, wa wacadtanaa biijaabatika, waxaad noo ballan qaaday inaadna aqbalayso. waqad dacuunaaka kamaa amartanaa, saad noo amartaan kuu toognee, fa ajibnaa kamaa wacadtanaa, saad noogu yaboohda noogu ballan qaada noo aqbal wey. wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi bini aadamu udcuunii ibarya astajib waan ajiibi lakum idinka ayaan idin ajiibi wey. ina aladiina kuwa yastakbiruuna isweynaysiiya can cibaadatii cibaadadeyda iyo baryahayga inay aniga i caabudaan waa gaalada, waa dadka xunxun kuwa iskala weyn. ina aladiina kuwa yastakbiruuna isweynaysiiya can cibaadatii aniga cibaadadeyda iska weynaysiiya sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama, naarta liraayay geli doonaan. kibirka mar kasta qur-aanku ma agala. kibirku macnaha waa xaqoo laga santaabo, ummadana la yeso. labadaas qofka ku tilmaanaada khalaas. sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama, naarta liraa daakhiriina xaal ay yihiin kuwa dulaysan, weliba ayagoo dulaysan, ayagoo dhulka lagu jiidayo. yooma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim. allahu ilaahay nicmooyinka ilaahay una xasuusinaya. aayadahan dambe oo dhan suuraddu ay ku dhammaanayso waa tadakur binicmati illaahi wa aayaatihi wa sifaati ahli nnaari waljanna. allahu ilaahay alladii allihii wayajcala lakum idin yeelay alleyla habeenka idin yeelay
markasta habeenkii iyo maalinka waxa weeyaan nicmooyinka qur'aanku uu na xasuusiyo laakiin ma fahmayno habeenka helidiisa maalinka helidiisa waa nicmo markasta tafakkur u baahan wey allahu ilaahi alladii allihi way jacala lakum idin yeelay alleyla habeenka xikmaduna maxay tahay litaskunuu inaad xasishaan oo degtaan fiihi habeenka dhexdiisa aad ku xasishaan ayuu idin yeelay ilaahi sakiinada yacni qofka bini'aadamka ma oga laakiin qofka bini'aadamkaahi wuxuu formaad gareeyaa ama uu ku sameeyaa tanshiid iyo deganaan wax alla wixii fayris daal iyo soo jeed iyo qaylo gala jirkiisa habeenkii iska faraqaawe iska nadiifinaya marka waa xigmad ku jirta laana waxaana keenaya jawiga isbedelay habeenka wax alla wixii bahal ahaa ama xayawaan qaylinaya ayaa aamusaya shanqarta laga joojinaya caruurta ka jiifanaya xayawaanaadka jawiga qaboobaya jirka marka sakiino helaya litaskunu inaad xasishaan fiihi filay marka qofka habeenka wuxuu jiifanaya asagoo meel kasta ka jajaban subaxii markuu soo kacna fresh way wannahaarana ilaahay oo idin yeela maalimka mubsiran mid wax arka way yani mubsir waa min baab al-isnaad ila ad-darfi ay mubsaran fiih maalimkan ilaahay wuxuu yeelay mid wax lagu arko qofku wuxuu arkayaa wax alla wixii xala ka qarsoonay habeenkii markaad banaanka soo istaagto waxba uma jeedid waa mugdi laakiin waagu markuu bariyo khalaas wax walba waxay noqonayaan mid wax lagu arko arkida kaliya ma jid indhahe nolosha xataa furmaysa way rizqi shaqadii waxbarashadii ayaa maalimkii loo dareeray inna allaha ilaahay laduu fadlin fadilid iyo sharfid alla u saaxiibi way cala naasi dadka uu fadilay nicmadaas ilaaha dadka ku fadilay walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badan laa yashkuruuna kama mahad celinayaan fadlahu ilaahay fadligiisa kama ilaa wada habeenka nasi maalimka ilaa wada nasi watan soo marnee qul ra'aytum in ja'ala allahu calaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilaahun ghayru allahi yatiikum bidiya hadii ilaahay in ku joogteeyo habeenka oo mugdi laga wada dhigo ilaa qiyaamaha maalinba uusan jirin iftiini idin keenay ilaahay qul ra'aytum in ja'ala allahu calaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilaahun ghayru allahi yatiikum bil-laylin taskununa fiih hadii maalin laga wada dhigo maanta dhan la soo dad waxa jira maalinka oo dhan aan jiifa karin inay habeenka wax yar jiiftaan maahane maalimka ma jiifa karaan marka waa dhibaato idaalikum midkiinaas allahu alla way hani waxa leeyahay gaaladii habeenka ay maalimka nolosha degan iyo wax qabsigaasi asnaam ma keenan waa alle rabbukum rabbigiina ahway ama rabbukum ka badal rabbigiina way khaliqu kulli shay'in wax walbana allahi abuuray way la ilaha illa haq lagu caabudo mawjuudun fil kown koonkan kuma sugna illa huwa alla mooyaan fa annay sideeba waayabe tu'fakuuna linkaga jeeriya can al-haqi mar adinko aayaadka ilaahay u jeeda sidee xaq uga jeesatiin way kadaalika sidaas oo kuwan ay xaq uga jeestaan ayaa yu'faku alladina kuwii loo jeediyaa kaanuu ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaati illaah kuwii ka horreeyo aayaadka ilaahay diidi jirana saasaa loo jeediyaa way shaydaan iyo naf ayaa ka xogbata way kadaalika sidaas ayaa yu'faku alladina kuwii loo jeediyaa kaanuu ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaati illaah ilaa aayadihiisa diida allahu ilaahay alladii allihi way jacala lakum in kaga yeelay al-arda dhulka qaraaran sugnaan ardadu hadday maanta boodboodi lahayd dhaqdhaqaaqi lahayd qof wax qabsada ma jiraanba guriga dhismaagta waa duma weelkaad meel saarta waa dhaca adigi waa dhace nolol ma bijigteenba ilaaha dejiyey wasamaa samadan ilaahay wuxuu kaga yeelay binaa'an dhismo wey waa sanqaaf samada maxaa meesha hadii laga wareejiyo naartii iyo cadaabkii iyo dhibaatooyinka dhan naga koreeyo samadu marka waa dhismo sanqaaf ay noo tahay yani waxa weeye oo qofka bini'aadamka ahi ka koreeya wey ilaahay wuxuu yidhi wasawwarakum ilaahay bini'aadamow wuu idin suuradeeyey ilaahay muuqaal uu idin sameeyey fa axsana ilaahay wuxuu wanaajiyey suwarakum muuqaaladiinna yani insaanku laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim axsan suura insaanka leh maxaa yeelay xayawaanka kale oo ilaahay abuuray wax jooga bini'aadamka lama jiraan dhabarkooda iyo garbahooda iyo dabadooda iyo madaxooda waa siman yihiin xoolo waa siman yihiin jooggaas bini'aadamka iskale waayo ilaahay wuxuu yidhi wasawwarakum ilaahay waa idin suuradeeyey fa axsana ilaahay wuxuu wanaajiyey suwarakum muuqaaladiin warazaqakum ilaahay haddana wuu idin irsaaqay min atayibaati waxyaalaha wanaagsan oo macmacaan ayaa ilaahay ka irsaaqay bini'aadamka wuxuu cuno
ama cabo ama xirto wax dayibaada wa halka aad aragtay qashimada la tuuro iyo wasakhda iyo wax uraya ay isaga nool yihiin xayawaanaadka kale wey daaliku midkiinaas allaahu alla weye rabbukum rabbigiinna weeye ama ah dhehe fatabaaraka allaahu ilaahay khayrkiisii ayaa batay oo farabatay rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wax alla wixii ka soo haray rabbi uu ahaa huwa alleh alxayu wa allaha nool wey ilaahay waa nool yahay wey yacni xayaata abadiya ayaa ilaahay nool yahay wey yacni ma dhimanayo yacni meelay ka soo bilaabatana ma jirto laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro koonkan ilaa huwa asaga maahane fadcuuhu allaha caabuda mukhlisiina xaal aad u saafi garaynaysaan lahu alle addiina cibaadada addiin bimacnaa hoggaansanka cibaadada adinkoo u saafi garaynayo oo shirkiga ka tagaaya allahaas caabudur ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu mahad lilaahi allah ayay u sugnaatay allahoo rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ilaahay wuu mahadsan yahay muxuu ku mahadsan yahay calaa tawdiixi alxaqi wa bayaanih mar kasta ilaahay xaqa inuu caddeeyo uu daahana ka qaada weye wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allah